السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك رمضان مبارك. على ذنه. رمضان رمضان مبارك. مبارك وأنيجي مركل عن صون قضي يمستي ومركي صلوات سنة صون قضي وعاوة أترتمد دون السهام وحيد الله إن أصحابته مركلة كسود هذا برنامج كيني ويدي صاحبك وعاوة التحي قبتي صلوات إن حيد الله هاي كسود هذا iga dhaya dhibtayda dareema igu dhaqa wanaagina dhaqaada isku soo noqod wanaagsan asxaabta caawa waxaan gudgali doonaa barnaamijkeeni qaybtii labaad oo ahaa ama loogu magac daray barnaamijka weydii saaxiibka. caawan waxaa halkan ku tartami doono Sihaam iyo Musti. waxaan weydii doonaa min 4 su-aal, midkiiba waxaan weydii doonaa 4 su-aal. su-aalahan waxay isugu jiri doonaan waxyaabo badan, hadhow dib ka arki doontaan. haddana waxaan idinku wareeji doonaa asxaabta labadii garab fadhiyaan si ay iska baraan. waa kaas asxaabta halka bilaaba. magacayga Musti waaye, qaybta hore ku jiro waa raay, haddana qaybta waxaan rajeynaa inaan raayo insha Allah. saas taagay caawan waa diyaarsan tahay. diyaar maanta. okay adina waxaa leedahay magacayga waa Sihaam xarjiina maanta anina raayo Caawan asiga marka hore raymid tore sax. anna raayna laakiin maanta okay waa arki doonaa qofka raayo insha Allah. haddana waxaan gudagali doonaa su-aasheeni koowaad yaa ku bilaaba. egaalo waa ku bilaabo. egaalo wala wallahi yaa egaalo waa ku bilaabo. adoo ku bilaabo saasi. asi ku bilaw okay 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 adoo ku bilaaba. okay su-aasha waa ku tusi doonaa sax. diyaar waaye. waa calan. waaye marka aan ku tuso calanka 30 sakin ku bilaabanayso. 30 sakin kadib ama 30 sakin inta socota sheegi kartaa. marka calanka ku tusaa diyaar. calanka 30 sakin oo ku bilaabatay. calankana waa kaas. calanka waa easy oo brother. calanka maxaa calanka Brazil waaye. ayaa easy wala calanka calanka laga ka tumaale. dadka FIFA ciyaara way yaqaana calamankan. صح. برازيل ciyaartooyda ma kala taqaana. let's go. ciyaartooyda hal ilaa waxay. يا hal ilaa علي وديك ديار واي متقارنة ciyaartooyda برازيل ciyaartay يا hal ilaa mutaqarrina. ضد هو اخينا برا ضد ايكون يا اخي. okay waa ka dhafay. su-aasha jawaabta ka bixisay waa midda saxda ahayd. hambalyo waxaa leedahay halka ku haysataa 1 dhibac. haddana waxaan weydii doonaa su-aasha koowaad. Sihaam adina waxaa ku tusi doonaa calan 30 sakin hadday ku bilaabatay. calanka waa kaas. calanka waddankeeda laakiin magiciisa waa ilwiye calanka isku day waddankeeda idhamaadkan sifiican fiiri calanka. تم محمد يا عشان اورينا جينا برا. muu maleynahay isku day calankan. Denmark. هاي صدق سكن 30 sakin day waa ka dhamaatay. waa ka dhamaatay jawaabta ugu dambaysa jaanis kala kusiinaa. waddanka okay waa sheegi weysay maadaama 30 sakin ka dhamaata jaanis kale kusii siiyey ay baraada waddankaas. علن كسويدن هو برا. soo ay faa waa fududeed baa ma garata jawaabta ka bixisay waa midda saxda ah. waa calanka ama waddanka Sweden calankeeda waaye sida aad ka aragtaan shaashada. halkan Musti wuxuu ku haystaa 1 dhibac oo caadi u leeyahay iyo mid ka faa'iideysay. haddana waxay maraysaa 2-0. Sihaam waxaan ku rajeyn doonaa inaad soo guuri doonto. soo carar kuma dhayn ma garata. Jalo mu haystaan. inshallah buu haystaa ninka iga dhacay ninka. okay Musti waa su-aashaadii labaad ahna su-aasha saddexaad ee tartanka. hadda su-aashaada labaad ku weydii doonaa. sawirka marka ku tuso ayay 30 sakin ku bilaaban doontaa. 30 sakin hadda ku bilaabatay. sawiran ku tusi doonaa. caadiyan ku tuso sawirka. ديار weji indha qaris ma ninkaas magaciisa laga rabaa. sawirkan ku tusaa ninkaas magaciisa saddexaad. وكسر ay magaciisa. يا yes ninkan Soomaaliya oo soo degaato ninkan maxaa waaye Maxamed Siyaad bare maxamed Siyaad bare
sidaad barayso su-aasha jawaabtu ka bixiyey waa midda saxda ah. waxaad ku haysataa halkan 3 dhibic iyo eber ayay maraysaa. iduna hadda su-aashii aad xaq u lahayd haddana waxaa ku keeni doonaa isla sawir oo sawirka caadan ku tusi doonaa. ninkaas magaciisa laga rabaa waana isla madaxweyne hore oo Soomaaliya ka tirsanaa. adoo kuu fududeena madaxweyne hore waa isna Soomaaliya ka tirsanaa oo Soomaaliya soo ahaa jiray. ma garat marka sawirka ku tusi doonaa. sawirka markaa ku tuso ayay ku bilaabanaysaa. 3 sakiin waa ku bilaabatay. madaxweynahaas magaciisa ka rabaa. Sheekh Shariif miya ya waa ka jawaabay waa ka jawaabtay. su-aasha jawaabta ka bixaysa waa mid sax ah. waa Sheekh Shariif. waa madaxweynihii hore xasan sheekhkii ka horeeyay Sheekh Shariif. su-aasha jawaabta ka bixaysa waa nasiibsatay. waa iska sheegay Waa iska nasiibsatay. afka leeyso ay Okay. halkan hadda waxay maraysaa 3 dhibic iyo 1 dhibic ay saam ay leedahay. haddana su-aashan haddana waa isla sawir. hadda indhaha idinka tusaa ma garata tii hore waa idin fududeeyey sawirada toosa idin tusaa. hadda indhaha idinka tusaa qofku yaa sheegay. ada hore usoo aragtay mana tartanka hore hadda hore usoo aragtay. indhahan ka tusaa qofkaas qofku yaa ii sheegay. markaa sawirka ku tuso ayay 3 sakiin bilaabanaysaa. okay 3 sakiin waa bilaabatay. sawirkan waa kaas. ninkaas magaciisan ka rabaa. wareey waxaa ka leedahay ninkaas yaaba. baradan iyo adiga maxaa waaye barada ninkan Soomaali ma horta isku day sakimada kugu socdaan. shways 8 9 10 waa ka dhamaatay 3 sakiin. ay saam ka faa'iidayso waqti ma leh. ninkaas وراك كريستيشن أما مش فنان عانو هاي. shways والله ما خبره ولقي ما اركب فنان عانو هو فنان عانى معاه وصومالي ميا ناسي سومالي ما جاستن بيبر يس. su-aasha jawaabta ka bixisay waa mid sax ah. waa Justin Bieber. sida sawirka meesha ka aragtaan. hadda waxay maraysaa 2 dhibic iyo 3 dhibic. okay waa soo qabartaa. hadda waa ku sheegay soo gurgura ku dhaafkar. haddana su-aasha xaq u leedahay haddaa ka jawaabtid isla meel ya. okay 3 sakiin hadda ku bilaabatay. sawirkan waa kaas. أوباما ميا بلاك أوباما waqti waa haysata isdejin isku day. waa fanaan asina waa fanaan. waa ku fududayna fanaan waa asina. أصلا سومالي ماهين Soomaali ma ahan. meeshaas Justin Bieber haday u ka haysaa ninkan waa ku fududaynaday. ay هذا افضل هذا isku day. ماشي. تيري سيكنس أفريكانو يا عدم يا ما يدير تا cadaan ma ahan. أقصد Afrika waa ku jira waxyar Afrika dhiiga Afrika waa ku jira cadaan. cadaan zaidna ma. Nicki Minaj heesa la qaada badan. Nicki Minaj la qaada badan heesa. damn نيك مناجي وادنا oo heesa la qaada. Nicki Minaj la qaada. okay hadda isku day ku soo jawaabta ugu dambaysan simir. ما خان okay ka faa'iideyso su-aasha jawaabteeda ku soo. su-aasha haddaa isku dayo faa'iideyso in waqti ma lahanay. Drake waa Drake su-aasha jawaabtu ka bixiyey waa midda saxda ahayd. mustay halkan waxaa ku haystaa 4 dhibic saana 2 dhibic ku haystaa. waxaan sii gudageli doonaa su-aasheenii afraad. waa su-aalaan waa su-aal xiraale ah. ma garateen su-aal xiraale ah. xiraale waa arki doontaa. xiraale waa su-aashan mustay adan kugu bilaabaa. okay su-aasha waxay u dhacday sida tan. ari ama ri dameer waa dameer sorry dameer wuxuu fadhiyey albaabka guriga banaankiisa marka rooba da-ay. marka roobkan xoog u da-ay ma garata. dameerka banaanka u jiifa marka dhinac u jiifa. dameerka markuu jiifa taqaana dhinac dameerka u jiifa. dameerka marka roob xoogana kusoo da roobkan kusoo da-ay waa soo baxay guriga soo galay waa soo xarooday. dhinacna qaleelo ka ahaa
dhinacna engage ka ahaa sababay ku dhacday sababtoo ah dhinac u jiif mogtahay dhinacaas marka maxaa u hayo dhinacaas khalil waaye ya su-aasha markale kugu celina alle su-aasha markale kugu celina Nacam. su-aasha markale kugu celina su-aasha markale kugu celina easy waaye brother dameera wuxuu fadhiyey guriga banaankiisa dhinac u jiifa dameerka hay roob xooganaa socda marka roob xooganaa dameerka roobaa ku da-ay marka oo soo baxa guriga soo galay marka dameerka guriga markuu saan usoo galay dhinacna qaleelo ka ahaa dhinacna engage ka ahaa sababay ku dhacday marka su-aasha marka labaa kugu celina jaanis ku doonay khaleela ilahaysa dhinacna engage ay sababay ku dhacday marka dhinacan u jiifay oo soo galay su-aasha ugu dambeysa jawaabta ugu dambeysa brother engage khaleel waaye صح sababta saas ma hawa may dameerka ma ahay no brother manu wali brother dameer oo guriga soo galo oo jawaabta ugu dambeysa si aad ku sax sababay ku dhacday dhinaca qaleel una dhinacan engage una sababay ku dhacday dhinacu ku jiifa khaleel waaye mogtahay صح ya صح dhinaco corona engage waaye engage jawaabta ugu dambeysa Ah. su-aasha jawaabta ka bixisay ma aha midda saxda ka faa'iidayso waxaa u malaynaa roob mud iimin be oo kugu celina su-aasha jawaab kugu celina soo fahantay dameera banaanka guriga banaankiisa oo jiifay dhinac u jiifay hay rooba xoogana soo da-ay marka hay dameerka roobka xoogga markuu soo da-ay dameerka waa baxay guriga kusoo xarooday dhinacna qaleeloo ka ahaa dhinacna engage ka ahaa sababay ku dhacday roobkaas muu ku diiniyey gurigu soo gala dhawsaahe jawaabta ugu dambeysa Qaleel garanta brother qaleel garanta dhinacna engeejo ka ahayo dhawsaa engeej khalile mahino su-aasha jawaabta ka bixisay waa midda saxda ah qaleel iyo engage waa isku mid jawaabta hore waa middaas wayna sheegtay su-aasha jawaabteeda halkan waxaa ku haysataa 3 dhibic adina waxaa ku haysataa 4 dhibic su-aasha ugu dambeysa waa haddii su-aashan aad ka jawaabtid waa baraja noqonay haddii aad ka jawaabi weysan waa lagaa badiyay maadaama 4-3 wato waa last chance anaa ka badi markaas waa isla su-aal ayadana xiraale ah okay waa tii hore mid lamid ah ayadana okay diyaarada waxay maraysay Djibouti iyo Somaliland dhexdeeda ay maraysay diyaaradii meeshay kusoo dhacday Djibouti iyo xuduudda dhexda xuduuddooda kusoo dhacday Somaliland iyo Djibouti ya dhexda qayb Djibouti jirta diyaaradda dhexdeeda qayb Djibouti jirta qaybna Somaliland marka meedki meesha ku dhaacmay xagee la geenaa Djibouti ma la geenaa mise Somaliland la geenaa meedka meesha ku dhaacmay dadka meesha caashano Djibouti dadka diyaaradda dadka saarneed mahayno dadka dhinteen reerkooda dhinacay jiraan meedka meesha ku dhaawacmaan ku dhaawacmay intee la geenaa intee isbitaalkee lagu dabiibaa isbitaalka Djibouti ku yaala mise isbitaalka Somaliland ku yaala haye intee lagu dabiibaa meedkaas Djibouti lagu dabiibaa meedka may muu ahaa karta saasee see diyaarad laba dhinacay u kala qaybsamay diyaarad waa kugu celina marka haafay saarneed maxaa okay marka lan kugu celina diyaaradda waxay maraysaan ku dhahay Somaliland iyo Djibouti dhexdooda maraysa xuduudda diyaaradda marka dhexda ku dhacay xuduudda ku dhacay qayb diyaaradda dabada dambe Djibouti ku jirta afkeeda hore Somaliland ku jirta marka meedka meeshaas ku dhaacmay isbitaalkee la geenaa isbitaalka Djibouti baa la geenaa mise isbitaalka Somaliland ay qofka meesha ku yimaado aasana tee meedka lagu dabiibaa ninka oo dhaawacmay meesha uu rabo la geynaa meesha hore la geenaa ha dhinaca rabo okay warka kule su-aasha jawaabta ka bixisay ma aha mid saxda ka faa'iidaysay brother tee lagu isbitaalkee la geenaa meed isbitaal lama geeyo brother hadda meedka dhaawacmaa ma dhihino qofkii dhaawacmay qof dhimad se u dhaawacmee qofta waa u dhimad se u dhaawacmee maxaa waalduugaale brother su-aasha jawaabta aa ka baxay musti waa midda saxda ahayd waxaan halkan ku haysataa 5 dhibic sababna waxaan ku haysataa 3 dhibic caawina tartankeena intaas ayuu ku egyahay waxaan halkan guusha ku raacday musti waa markii labaad uu guuleysanayo
oo tartankan uu ku guuleysanayo oo dhibco xoogan oo caawa kasoo baxay 2-0. Muslim maxaa ka leedahay caawa? brother waa faraxsanahay hadda dadkan hal u tumay finaalka anaa ku dambeeya hadee diyaar adna ku dhiiba brother soo degada diyaar waay warka ku dhan hay-adna waxaa leedahay caawa لا حرجنا laguga su-aalaha qaar oo laguga sax mid ma dhaawacmaaday diyaaradda fiirus mid baa ku dhan mid ma dhaawacmaa meydka diyaaradda xag fikira diyaaradda labada dhinac kala asirid kala asxaabta haddaad ku cusub tahay youtube-keena waxaan kaa rajeyn doonaa ama aan rajeyn doonaa inaad noo saari doontid subscribe like iyo share dhag noogu sii asxaabta marka asxaabta insha allah habeen dambo ama habeenada soo socdo qaybteenii ugu dambeysay ayaan soo geli doonaa finalka ah waxaan ku dardami doono aniga iyo libaaxa labada jir soo badiyay marka gambalelkan taawsi video dambe ay ku dhaafin marka waxaan idin rajeynaynaa habeen wanaagsan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu igadhaya dhibtayda dareema igu dhaqa wanaagida dhahada